hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta ayaa deeq xoolo qaliin ah oo loogu talagalay maalmaha Ciid al-Adha u qaybisay boqolaal qoys oo danyar ah oo ku dhaqan xaafadaha magaalada Burco. Maxamed Cismaan oo ah gudoomiyaha hay'adda Somtrag oo isagu ka wakiila hay'adda bisha cas ee Imaaraadka ayaa ka warbixiyay xoolaha qaliinka ay u qaybiyeen bulshada danyarta. نتقدم نحن هيئة سمترج للتطوير الإنساني والعمل الخيري بأسماء آيات الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي قام ويقوم بتقديم أضاحي عيد الأضحى المبارك للعام 1437 هجرية الموافق 2016 ميلادية، وذلك في كل عام في أرض الصومال وبالتحديد في مدينة برعو. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من شعب الإمارات بهذه المناسبة الكريمة والمحسنين ما يقدمونه من عون إنساني عظيم، وأن يجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة. إبراهيم معلن الشكري يا آدل محمد جامع وأتليها سليقة بوليس حافظة محمد علي وهالكاسي كهذي أي هاد عليي هيدا bisha cas ee Imaaraadka. halka aynu taagannahay waa garoonkii SWASha halkaas aynu sanad kasta ulxada iyo afurda aanu ku bixino ay bixiso hay'adda bisha cas soo mariso Somtrag halkaas oo aynu saaka aynu ku qaybeyno arigii ulxada oo loo qaybinayo dad ilaa 600 oo qoys oo danyar ah oo xaafada ah. marka dadkaas soo bixiyay Ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaad ku saaro dhamaantood dadka soo bixiyay iyo dadka wada. waxa weeyaan dugsigii Maxamed Cali xaafada Maxamed Cali ee magaalada Burco waxaanu ku haynaa munaasabad ku saabsan oo hay'adda Somtrag Somaliland ay ku siinayso dad danyar ah xoolo nool oo la qalay lagu quudinayo lagu siinayo dad danyar ah. ulxadaas oo ay soo bixisay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabiya. waxaanu u ducaynaynaa labada hay'adoodba, waxaanu u ducaynaynaa dadka muxsiniinta ah ee soo bixiyay dadkaas sadaqada soo siiyay ee udxada ah. hay'adda bisha cas ee Imaaraadka ayaa sanad kasta marka xilligan oo kale la gaaro deeq xoolo qaliin ah u qaybisa bulshada danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco, sidoo kalena mashaariic horumarineed oo kala duwan ka fulisay deegaamada Somaliland. Kays Axmed Dagaale, Hon Cable TV, Burco.